Soomaalidu cilmi badanaa. Ayaga dhan waa talo socoto haddana kuma dhaqaaqaan. Waa waddan dhan oo dadkiisu wada doonayaan in ay dowladda u shaqeeyaan. Oo hadday sidaa dhacdo howlaha kale yaa qabanayo. Cajiib. Qaladka gurigooda ka dhaco waxa ay u saariyaan madaxda dowladda. Xitaa bisadda gurigooda joogto hadday caanaha ka daadiso waxaa laga yaabaa inay dusha u saaraan madaxweynaha dalka. Waddankay tagaanba sidiisoo kale inay noqdaan bay jecel yihiin. Haddana inay door muuqda ka qaataan ma rabaan. Tuug wax dhacayo hadday arkaan intuu qofka dhacayo waa fiirsadaan. Markuu ka tegayse waraysi ugu tagaan. Ina adeerkood inta oo xilka haayo waa wada wadiniyiin. Maalintuu xilka ka degana waa wada mucaarad. Waxaad arkaysaa odayaal ku matela oo diyada ubadkaada kala qaybsada sidii inay ubadka iyagu dhaleen. Haddana aadan garanayn magacyadooda iyo waxa ay qabtaan. Ninka wax barta waxa ay ka jecel yihiin kan xoogsada oon hal abuurkaba lahayn. In ay maskaxda tuujiyaan oo wax cusub hindisaan waxa ay ka jecel yihiin midkan deriska ah in ay fikradiisa xadaan. Qofka la dulminayo waa ku digtaan inta iyagu dulmigu kaga imaanayo. Markaas bay baroortii shalay walaalkood baroorataa. Intaad nooleyd wax aad u baahneed. Bay markaad dhimato kuula soo ordaan. Soomaalidu waa dad qani ka ah khayraadka dabiiciga ah. Laakiin waa ka faqiir sida looga faa'iidaysto khayraadka Ilaahay ku manaystay. Soomaalidu cilmi badanaa. Oo iskaa wax u qabso may ku ciilbaxaan. Taasina waa taladayda aan wax ficil ah la socon.